First, I loved a pretty girl whose family is wealthy. She is an educated. First, I tried to speak her, but she turned deaf ear to me when I consulted with my friends, and they advised me to write a short letter to her, and I did so. What did you say in the latter? First I praised her well, and I said, "Dear, the most loved of mine, I love you. The first day I saw you golden appearance, dear, I dreamt of you a day and night, and I can't taste the food unless I see you. I admire you to be my future darling. I am dying for the sake of your love. I am near to be in the grave. Dear, if I get you, I shelter the richest and the happiest man the entire world." assalaamu calaykum casharkeennu wuxuu ku saabsanaan doonaa wada sheekaysi jacayl first I loved markii ugu horreysay aan jeclaaday a pretty girl gabadh qurxoon whose family taasoo qoyskaygu yahay is wealthy qoys waxay kasoo jeeday qoys ladan she is uneducated iyaduna waxay ahayd gabadh mutacaalimada first markii ugu horreysay I tried to speak to her aan isku dayo inaan la hadlo markii ugu horreysay waxaan isku dayay inaan la hadlo iyada but laakiin she turned deaf ear to me but laakiin she turned deaf ear to me way igu dhaga adeegtay oo way iska kay dhaga tirtay one markii I consulted with my friends aan la tashaday saaxiibadayna and they advised me waxay igula taliyeen to write inaan qoro a short letter warqad gaaban to her aan u qoro iyada and I did so waanan sameeyey first markii ugu horreysay I loved aan jeclaaday a pretty girl gabadh qurxoon whose family taasoo qoyskayguna is wealthy uu ahaa qoys ladan she is iyadu uneducated waxay ahayd gabadh mutacalimada first I tried markii aan isku dayay to speak to her inaan la hadlo iyada markii aan isku dayo inaan iyada first markii ugu horreysay I tried waxaan isku dayay to speak inaan la hadlo her iyada inaan la hadlo but laakiin she turned deaf ear to me way iska kay dhaga tirtay one markii I consulted with my friends aan la tashaday saaxiibaday and they iyagu advised to me waxay igula taliyeen to write a short letter inaan u qoro warqad gaaban oo aan u qoro to her iyada and I did so waanan sameeyey marka waxa la weydiiyey wuxuu uu qoray what did you say in the letter warqadda maxaad ku tirid ama maxaad ku qortay warqadda first markii ugu horreysay I praised her waan ammaanay iyada well si fiican baan u ammaanay and I said waxaanan idhi dear gacaliso the most loved of mine tan aadka u jeclaayay I love you waan ku jeclahay I love you waan ku jeclaaday the first day maalintii ugu horreysay I saw you aan ku arkay golden appearance muuqaalkaaga quruxda badan la aan arkay ayaa waan ku jeclaaday dear gacaliso I dreamed of you waan kugu riyoodaa a day maalin and a night iyo habeen maalin iyo habeenba waan kugu riyoodaa and I can't thirsty ma cuntana ma dhadhamin karo cuntana ma dhadhamaso and I can't thirsty cuntana ma dhadhamin karo and I can't thirsty mana dhadhamin karo the food cunto ma dhadhamin karo unless ilaa iyo I see you aan ku arko I admire you waxaan kugula talin lahaa to be inaad noqotid my future mustaqbalkaygii darling gacaliso I admire you waxaan kugula talin lahaa to be inaad noqotid my future mustaqbalkayga darling gacaliso
I'm dying for you. Waan kuu dhimanayaa. The sake of your love. Jacaylkaaga dartii ayaan u dhimanayaa. I'm near. Waxaan u dhowahay to be in the grave. Inaan godka u galo. Dear gacaliso. If I get you haddii aan ku helo, I shall be. Waxaan noqonayaa the richest ka ugu taajirsan and happiest man iyo ninka ugu faraxsan in the entire world adduunkoo dhan. Casharkeeni maanta intaasuu ku eekaan doonaa. Intaan casharkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegay